siyaasi cali axmed cabdi cartan oo kamid ah mas'uuliyiinta xisbiga mucaaradka ah ee wadani ayaa ka hadlay qoraal ay dhawaan ay soo saareen qaar kamid ah dhalinyarada reer Soomaaliland kaasoo ugu magac dareen baaq shacab waxaana uu sheegay inuu taageersan yahay baaqaasi ay soo saareen dhalinyarada reer Soomaaliland baaq shacab haddii aan xanuun lahayn daadar cid walba waa taageersan baaq shacab oo la taageersan yahay wax weeye haddii la garan waayo maamulku itijaaha uu haysto ilaa waxa weeye dadku jihay haysteen bariga hore dadku waxa lagu weyn rajo la geliyaa ummadda weyn la yiraahdaa waynu goonahay waxaanu hiigsanaynaa in itiraaf aynu qaadano itiraafkii iyo doonistiisii waa in la arkaa laakiin haddii laga fadhiisto dadminis waxba lama doondoonay 3 sanadood baa iminka galgalin la fadhiyaa marka waxa loo baahan yahay isbedel baa loo baahan yahay change baa loo baahan yahay dadku hadday yiraahdaan sifayo oo historia ayaanu wax u galeynaa waan raacsanay arinta baaq shacab waxaan leeyahay xukuumaddu wixii dawaayay xanuun u qaadan nimanka annaga wax khaldan kuma hayno yaan la isku dayin in xoog iyo qabqaf lagu dayo waxa weeye nimankaasi waxbay sheegaan wixii halala dhibeed gareeyo ha loo yeedho ha la wada hadlo ayaan leeyahay cali arsan oo arrimahaasi ka hadlaya ayaa waxa uu yiri shirkadda dahabshiil waxay macaamiisheeda meel kasta oo idaafaha caalamka ay ka joogaan ugu bushaaraynaysaa in iyaga oo jooga guryahooda ama base goobahooda shaqo ay heladooda iyo asxaabtooda lacagaha ugu diri karaan si fudud adiga oo isticmaalaya abka Talk Remit sidoo kale waxaa lacagaha lagu soo diro ku heli kartaa adeegga e-dahab